Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa Samsam Xasan oo idinla kusoo dhawaada channelkayga nolol wanaagsan. Maanta halkan waxaan idinku soo gudbin doonaa buugga la yiraahdo Ninkii Qaxoontiga iyo Laantiisii Dahabka. Buuggan waxaa qoray Yaasiin Daahir 2018 ayuu soo baxay. Buuggan markii hore Faransiis baa lagu qoray, markii dambena Soomaali baa loo bedelay. Marka buuggan wuxuu ka sheekeynayaa nin dhalinyar ah oo wax bartay oo ku noolaa magaalada Hargeysa. Marka buuggan markuu ka waramayo ninka dhalinyarta ahaa, qisadani waa qiso dhaba, sidii qisadiisii iyo wixii ku dhacay. Wuxuu ka sheekeynayaa buuggu magacyada dadka waa la bedeli doonaa. Marka ninkan dhalinyarta ah waxaa la yiraahdaa magaciisa Takarna waxa weeyaan ninka ay sheekadani ku socoto. Waana sheeko aad u cajiib ah oo farxad iyo naxdin ba iskugu jirta. Ninkan markii uu secondary ka baxay Takar wuxuu doonay inuu jaamacad tago. Jaamacadii waxa uu diray qabiilkii uu ka soo jeeday, isaga iyo 4 dhalinyar ah oo ugu sareeyay dugsiga sare xilliga. Jaamacadii waxaa loo diray dalka Hindiya. 7 sano ayuu ku maqnaa jaamacadii, waxaanu soo bartay ganacsiga. 7 sano kadib wuxuu ku soo noqday dalkii, magaaladii Hargeysa ku soo noqday. Kadibna wuxuu bilaabay shaqo raadis. Muddo 4 bilood kadib markii uu shaqo raadinayay arooraha kamida ayuu soo toosay, jawiga iska macaanka iyo gurigooda iska jooga, telefoon soo dhacay. Markii telefoonkaasi uu soo dhacay waxa loogu bushaareeyay inuu shaqadii ku guuleystay, uu soo dalbaday. Sidii baanu shaqadii ku bilaabay uu ku hawlgalay. Shaqadaas oo ahayd cilmigii uu soo bartay ganacsiga. Wuxuu u shaqeynayay shirkad ganacsi oo shirkadahan alaabaha soo dejiya. Ninkan Takar wuxuu nin akhlaaq wanaagsan oo edeb fiican oo hawlkar ah. Muddo 2 sanadood ah markii uu siistaba jooga shaqadii uga shaqeynayay, maamulihii ayaa arkay in ninkani hawlkar inuu yahay, shaqadii loo igmadayna inuu ka badiyayba oo hawshii hawlkar yahay oo shaqadii si fiican u wado. Kadibna wuxuu u kordhiyay mushaharkii buu kordhiyay. Kadibna Takar wuxuu ahaa nin